dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee Dadaab ee waqooyi bari dalka Kenya waxaa saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay tallaabooyinka ay dawladda Kenya uga hortagayso xanuunka safmarka ah ee coronavirus sida bandow habeenkii ah oo si buuxda uga hirgalay gudaha Kenya. dad kale ganacsiyada yaryar ayaa sheegay inay caqabad weyn kala kulmeen bandowga ay dawladdu soo rogtay taasi oo sii adkaysay nolosha qoysaskooda. aniga magacaygu waxa Maxamed Khaliif baa la yiraahdaa waxaan deganahay Xagardheere odayaasha suuqa oo geela ka ganacsadana kamid ahay. horta bandowga dhibaato badan iyo saameyn badan waa nagu yeeshay oo adduunka dhan ku yeeshay sida ogsoontiin ba adduunka waa silsilad isku xiran ganacsiga dibadda ka imaanaya kan gudaha wax isku xiran waa istaagay adduunka hadii ma garanaysa ganacsiga adduunka ka imaanayay ama isku socod hadii la waayay nin walba gurigiisa ku saameynaya hortaas waana saameeyay dhibaato badan buu noo geystay waxbarashada waa istaagtay maxaan ku raadayay dugsi haday tahay iskuul haday tahay dhibkaas waa noo yimid magacayga Xariime Maxamed Xayir waaye waxaan ku noolay xarada Xagardheer 92 aan soo xira galay ilaa hadda waxaan ku noolay xarada Xagardheer 10 cunug ayaa ii dhigatay iskuul meel wax la igama soo diro maqaayada ayaa habeenka ku biinan jiray jibsi aan banaanka ka duban jiray maqrib markay tahay cuntadii aan kariyado taalaan la noqonaya dukaankii aan ka soo qaaday subax lacagta ima siinay sababtoo ah waa cadeen jiray lacagta celin jiray hadda maanta lacagta bixin bariya wax ku siinaa waa mane ilmihi iskuulkooda waxa kama bixin karo nolosha ilmaha cariiri bay noqotay waxa la yiri 12 ka la kala cararo qofku wuxuu iga gadanay nafta hayso waa cararaya ani waa cararaya waxaan ka camanaynaa bandowdo annaga waxaan maamo Soomaaliyeed ma aadi karna gaar sharci ma haysano qaxooti baana xabsi kor ka banaan ku jirnaa haddana meesha aan maciishadana ku celcelinayne oo habeenkii jibsiga ilaa 5 saac ilaa 6 saac dhalinyarada naga gadanaysay waxa la yiri hal bandowo waxaan gadnaa alaabo yar yar oo macmacaan sida fruutka chickenka sambuusaha jibsiga marka rag habeenkii oo iskaabulada iyo dhalinyarada waxba karsan karin ayaa waxa siinay dadka yara xanuunsan oo chickenka kala la siinaa salaamaha walaca kamid ah marka dib weyn aad u weyn ayaa nagu soo kordhay maadaama anaga niska dambe shaqaysanay niska hore ma shaqaysano niska dambe dadkii shaqaysanaa ma nahay dadkan oo isku baahayiin hatta kuwa gaariga wato anaga noo baahid marka cabaar soo shaqaystaan anaga agteena shaaha ka cabaan ku shahleeyaan habeenkii waxaan ku gaari jirnay inta badowga aan la keenin waxaan ku gaari jirnay ilaa 5 saac 6 saac ku gaari jirnay hadda waxaan noqonaa raashinka loo tuurin inuu macmacaanka aan sameynay aan ku xareeno dib weyn ayuu noo keenay bandowga dadka dareemaya saameynta ugu badan waxa kamid ah dadka gaadiidka kaga dhex shaqeysta xeryaha dhexdooda sida uu sheegayo gudoomiyaha gaadiidleyda xerada Xagardheer Abuukar Cabdullaahi maadaama cudur la sheegay cudurkii magaalooyinka hadda saameyn badan buu noo keenay saameyn badan yuu noo keenay runtii isku socodkii magaalooyinka baabuurtii inta ka baxaan ilaa dhagaxley bay tagaan kuwii dhagaxleyna ilaa Xagardheer ay maadaan ifo sidoo kale Dadaab sidoo kale isku socod baa jiray baabuurtii marka dawladdu way soo dhaxgasho maxaa la yiraahdaa baabuur rakaabkiisa inta uu qaadi jiray qaadi karo malaha arrinka marka dadkii beecshiraleeydi baabuureeydi maxay u keentay saameyn weyn arrinka marka maxaan codsanaynaa in ay dawladda shaqada kalena ay wado xagga beecshirada socotana wax u keenay carqalad u keenayna wax laga jilciyo qodobkaas aan dawladdan ayaan baaq u diraynaa u codsanaynaa seyladaha xoolaha ayaa laga dareemayaa suuq xumo iyo xoolihii oo ku sii yaraanaya seylada waxaana taa loo saabeynayaa saameynta dhaqaale ee xanuunka corona iyo dadkii xoolaha keenay jiray suuqa oo aan keenaynin xoolihii iyaga oo ka cabsi qaba inuu haleelo xanuunka corona midda kale oo noo geysay waxa weeye ganacsigii waa socon waayay waa la kala baqay waa la kala mataqaan asheeray niba meel buu galay ganacsigu isku socday waa xirxirmay ninkii xoolihii keeni jiray ma garanaysaa gurigiisii wuxuu yar baxuli meel adgeysa ma laha wax ka iibsanay male dhanna suuq xumo u keeni waayay dhanka kalena wuxuu u keeni waayay ma garanaysaa cabsi darteed ama uu cudurku ku saameeyo oo ma taqaana sidaas nin cudurkii ma taqaana ama ku saameeyay sababteed ma taqaana u baaqday iyo nin haddii aad wixii geysama laga gadan waayaan waa loo kala go'ay horta dhibaatadaas way nagu dhacday suuq xumadaas ganacsigana waa silsilad isku xiran ummadda ninba meel ka ganacsada nin xoolo ka ganacsada nin maqaayad ka ganacsada mid waa yaani dukaan buu gataa nin jaad ku ganacsada ninba meel wixii oo dhan waa isku soo xirxirmeen Axmed Cabdullaahi Jaamac xeryaha Dadaab